asalaamu calaykum daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijkeennii diblomaasi saacadihii lasoo dhaafay waxa uu baahinta haysata diyaarad ciidan oo laga lahaa dalka Canada oo si aada ay ugu soo dhawaadeen laba diyaaradood oo kuwa dagaalka ah lagana leeyahay dalka Shiinaha. Diyaaradan ayaa qayb ka ahayd ilaalo qaramada midoobay u dirtay inay ilaaliyaan cunaqabateynaha kala duwan ee saaran dowladda waqooyiga Kuuriya. Fadhigeeduna waxa uu ahaa diyaaradan dalka Japan, waxaanse ilaa iyo hadda la garanayn sababta ay sida aadka ugu soo dhawaadeen diyaaradaha dagaal ee Shiineysku. Inkastoo aynu ka dheregsanahay in dowladaha reer galbeedka ee Mareykanku hogaamiyo iyaga oo loo diray hawl inay ku daraan hawlo kale oo ah basaasnimo, kuwaas oo xadgudubyo badan ugu geystaan dowladaha caalamka ah, balse haatan ay ku andacoonayaan in diyaaradan Kanadiyaanka ay maraysay hawada caalamiga ah aan cidiba iska lahayn. dowladda Canada ayaa markiiba qaylo afka furatay una habar wacatay reer galbeedkii kuna wargelisay arrintan iyadoo warbaahinta waaweyn ee adduunku durbadiiba ay soo qaateen. xildhibaankan oo ka tirsan baarlamaanka dalka Canada waxa uu ku eedeynayaa Shiineysku inay yihiin bayloodo aan wanaagsanayn, si wacan loo tababarin, kuwaasoo isaga dhowaan kara diyaaradaha maraya hawada caalamiga ah. inkastoo ay tahay tan propagando, dowladda Shiineyskuna ay leedahay ciidamo aad u tababaran, haddana waa ku talagal sababta ay diyaaradda ugu soo dhawaadeen. ilaa iyo hadda dowladda Shiinaha kama soo bixin wax jawaab oo arrintaa khuseeya. dowladda Canada qudhadeeduna kama aanay run sheegin sababta rasmiga ah ee diyaaradaha dagaal ee Shiinuhu ugu soo dhawaadeen diyaaradooda. ilaa iyo hadda dowladda Canada waxay sheeganaysaa iyadu inay tahay tan lagu soo xadgudbay, halka ay maraysana diyaaradoodu ay tahay hawada caalamiga ah. balse waxaynu sugnaaba waa waxay arrintaa ka tiraahdo dowladda Shiinuhu. waxba dhici karta diyaaradani inay ku xadgudubtay hawada dowladdaas, ama saldhig ay ku leedahay badweynta Pacifiga oo indhawaalaba dowladda Shiinuhu ay ku hawlaneed inay isku fidiso. isku soo wada duub oo badda koonfurta Shiinaha ayaa waxaa ka jira isqabqabsi aad u weyn una dhaxeeya dowladaha reer galbeedka ee Mareykanku hogaamiyo iyo dalka Shiinaha. baddan ayaa ah tan ay maraan in ka badan 42% maraakiibta ganacsiga caalamiga ah, waana bad muhiim ah oo ay awoodda iyo guushu raacayso hadba qofkii gacanta ku haya. daawada waxaynu la soconaynaa bal xaaladda halkaa ka soo cusboonaatay iyo waxay ku dambayso. fadlan muuqaalka la garay